waxaan rabaa inaad ku soo wareejiyo halkudhig ah inaadan dowladdiina ka cabsanina ee dowladdu idinka idinka cabsato. shirweynaha dhalinyarada qaranka ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa looga arrinsanayay dhaqangelinta siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed, qodobada ku xusan sida ka hortagga fikirka xagjirnimada, wacyigelinta tahriibka iyo sidii dhalinyarada Soomaaliyeed u heli lahaayeen fursado shaqo. shirka oo socon doona muddo 3 cisho oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha isla markaana ay ka qayb galayaan dhalinyaro fara badan oo ka kala yimid guud ahaan gobolada dalka ayaa waxaa furay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyadoo ay goobjoog ka ahayd ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dhalinyarada. marka shirkan la xiro dhalinyarada Soomaaliyeed ay samaystaan geedi socod siyaasadeed oo dalka hor loogu marinayo oo rabtaan inaad dunida la xisaabtantaan waxaana waa shirkan inuu ku dhammaado shirweynaha qaranka dhalinyarada Soomaaliyeed. dhalinyaradii Soomaaliyeed waxay ka yiraahdeen masiirka ummadda Soomaaliyeed. haddii aadan saas ku soo dhameynina, haddii aadan awoodin inuu gacanta ku qabsanina, haddii aadan dowladdiina la xisaabtamina, haddii aadan dowladdiina u isticmaalina jaranjaradii idinku aad dalkan hoggaankiisa ku qaban lahaydeen ma ahidina mustaqbal waxaad tiin taariikhda maanta ma ahidina kuwii loo dhisi lahay dalka waxaad tiin kuwii dalka dhisan lahaa. waxaan leeyahay martida adduunyada nagala joogta haddii aad rabtaan Soomaaliya xor ah, horumar ah, caafimaad qabta, dhaqaale haysata, adduunyada la tartami karta waxaa kala fadhiya cidda Soomaaliya iska lahayd iyaga marka waxaan leeyahay inta ka fikirta dan khaasa iyo dan gaar ah inay ku shaqaysato dalka waxaan leenahay waqtigii lagu dhamaa. waxaan leenahay inta aaminsan qabyaaladda oo diidan qarannimada waqtigii lagu dhamaa. wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwe Khadiija Maxamed Diiriye ayaa xustay in shirkanu muhiim u yahay dhalinyarada Soomaaliyeed. rajaynayaa in siyaasaddan hirgasho aysan ahayn wax la qoray oo dalka u yaala laakiin ay noqoto wax dhaqan gala oo laga faa'iidaysto maadaama aad haysataan fursad ay idinku hogaaminayaan xukuumadda nabad iyo nolol ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo horumarinta dhalinyarada. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo furay shirka ayaa ka jeediyay qodobad dheer oo uu kaga hadlayo awoodda dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa xusay in hadafka weyn ee madaxda qaranka uu yahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay noqdaan hogaamiyaasha dalka meelna uga soo jeestaan kuwa leh danaha gaarka ee xumeynaya mustaqbalka dhalinyaradeenna. cidda naga saari karta caqabadaha loo taagan idinkeena cidda ka shaqayn karta inay tiraahdo waa inaan maxaa niraahdo markaan ka hadalno nabadda waan maya niraahdo markaan ka hadalno colaadda waa dhalinyarada keliya. cidda hormuudka u noqon karta nabadda albaabada u soo xiri karta colaadda ma aha kuwii idinka waaweynaa colaadda keenay laakiin waa idinka oo laydinka raba inaad keentaan xalka. cidda ka qayb qaadan karta heshiiska ama dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed oo dhihi karta haa in ummadda Soomaaliyeed dib laysugu keeno la heshiisiyo oo dhihi doonta maya ma ogolin khilaafkii aan soo dhaafnay 27 sano la soo dhaafay ma ahan kuwa khilaafka keenay ee waa idin. shirweynaha dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa ka mid ah qorshayaasha waaweyn ee ay dowladda Soomaaliya ku doonayso in dhalinyarada Soomaaliyeed ay dib u hantaan awoodda ay u leeyihiin inay horseed u noqdaan dhismaha Soomaaliya horumar iyo barwaaqo ah adduunkana kula tartama horumarka ay gaareen dalalka caalamka. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.